hadhihin ma haysto waqti ugu filan. waxaad haysataa 24 saac uu haystay Albert Einstein, Isaac Newton iyo Bill Gates. waxaad ka helaysaa nolosha waxa aad geesinimo u yeelatay inaad ka dalbato nolosha. waan ku guuldaraystay marar badan noloshayda, waana taas tan keentay inaan guulaysto, waxaa yidhi ciyaaryahan guuldarooyin badan la soo kulmay. dadka guulaysta hadiyad looma siin guusha, si adag ayay u shaqeeyeen, kadibna ujeedkooda way ku guulaysteen. waxaa jira hal shay oo riyooyin badan ka dhigay wax aan macquul ahayn in la gaaro, waana cabsida guuldarada. hadda waxaa samaysaa waxyaabaha mustaqbalka aad naftaada uga mahadcelin doonto. nolosha ma helaysid waxaad rabto, waxaad helaysaa waxaad u shaqaysato. ha isku dayin inaad noqoto qof kaamil ah, keliya isku day inaad ka fiicnaato sidii aad shalay ahayd. xanuunka aad dareemayso maanta wuxuu noqon doonaa xoogga aad bari dareemi doonto. sida ugu wanaagsan ee lagu kasban karo kalsooni nafeed waa inaad samayso waxa aad ka baqdo samayntooda. dhiirigelintu waa waxa sababa inaad bilowdo shaqo, laakiin inaad caado ka dhigataa ayaa ah waxa sababa inaad sii joogtayso oo aad ka guulgaarto. horay u soco, wax kasta oo aad u baahan tahay waxay ku imaan doonaan xilliga saxda ah ee ku habboon. xitaa kuwii ugu waaweynaa ee taariikhda soo maray mar bay ahaayeen bilow, marka ha ka baqin inaad qaaddo tallaabada ugu horraysa. wax walba oo aad weligaa rabtay waxay yaalaan dhinaca kale ee cabsida. horumar yar oo aad maalin walba samaysaa waxay dhashaa natiijooyin waaweyn. haddii aad ka dhex maqasho cod gudahaaga oo dhahaya ma qaban kartid, markaa micnaheedu waa inaad qabataa, kadibna codkaas yar isagaa aamusaya. ma ahan inaadan waqti haysan, laakiin waa inaadan waqti samaysan. adkaysiga dhabta ah waa shaqada adag ee aad qabato kadib marka aad ku daashay qabashada shaqadii adkayd ee aad horay u soo qabatay. haddii aadan weydiin, jawaabta mar walba waa maya. haddii aadan horay u socon, waxaa had iyo jeer joogaysaa booskaaga. marnaba ma ogaan kartid natiijooyinka ka soo bixi doona waxyaabihii aad qabatay, laakiin haddii aadan waxba qaban, wax natiijo ah ma jiri doonto. natiijadu waa eber mar walba. aqoonta waxay furtaa maskaxda, wayna ballaarisaa, waxayna kuu oggolaanaysaa inaad siyaabo badan aad noloshaada u horumariso. farqiga u dhexeeya iskuulka iyo nolosha: iskuulka waxaa lagugu barayaa cashar, kadib ayaa laga qaadayaa imtixaan, halka nolosha laga qaadayo imtixaan marka hore, kadib cashar qiimo badan aad baranayso. guusha adiga kuuma imaanayso, waa inaad adiga raadisaa. wax baro intaad yar tahay. dhalinyaronimada waa waqtiga aad baran lahayd xikmadda, marka aad da' noqotana waa xilliga aad ku dhaqmi lahayd. la xisaabtan naftaada. ninka ragga ah waa midka had iyo jeer marmarsiiyo u raadiya dadka kale qaladkooda, laakiin marnaba cudurdaar aan u raadin naftiisa. hal albaab hadduu xirmo, mid kale ayaa furma, laakiin inta badan waxaan sii fiirinaa oo waqti aad u dheer ku bixinaa albaabkii xirmay, taasoo keenta inaan arki weyno midka inoo furmay.